Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for clicking on this video. Welcome to my YouTube channel. This is Lessons with Miss Fatma. Walaalayaal waan islaamay idinkoo wada sharaf leh kusoo dhawaada qanaalkeygii waa qanaalkii Fatma Usman cashiradeena gaagaaban oo short stories maanta baraneynaa markeena friendship saaxiibtanimo. Friendship is believing in each other. Saaxiibtinimada waa in la is aamino. Friendship is caring. Saaxiibtinimada waa in la is daryeelo. Sharing wax la qaybsado and sticking together too. Iyo in la isku dhegnaado. There are many ways to show friendship. Saansaamo badan baa jirto oo la isku tusi karo ama la isku muujin karo saaxiibtinimada. Marka qiso gaaban aan galeynaa. The bus was coming soon. Baskii uu soo degdegay waqti dhow buu imaanaye and Ron didn't have his stuff packed up. Ronna alaabtiisi ma xirxirneen. He was having a bad day. A hard day. Wuxuu lahaa maalin aad u adag oo ku xumaatay. Tim iyo Don helped Ron. Waxay saacideen Ron pack his stuff up quickly inuu alaabtiisi dhaqso u xirto so he could make it sifuu uga gaaro to the bus on time waqti intuu baska ka tegin sifuu u helo. They were showing their friendship for Ron. Waxay muujinayeen saaxiibtinimadooda bay Ron u muujinayeen. Karen's best friend Tara. Karen saaxiibteeda qaaliga Tara la dhaho was in the hospital. Hospitaalka bay ku jirtay. She had all of her class make Tara get well cards. Karen way baxday classka dhan ay wax ku baranayeen bay kaararka oo lagu caafimaado get well soon la dhaho bay u wada hagaajisay. Aan soo wada hagaajino aan u geeno Tara hospitaalka ku jirto. Then she visited her friend in the hospital. Markaas bay baxday ee ku booqatay saaxiibteed hospitaalka. Tara's other friends were scared. Tara saaxiibaheeda kale wayba cabsadeenba. To see her when she was sick. Inay soo booqdaan markii ay xanuunsanayd. But Karen cared about Tara. Aad bay u daryeeli jirtay Tara and stuck with her. Wax kasta dhacona way la jirtay wayna la joogtay. No matter what, Karen was a good friend. Wixii alla wax dhaco, Karen saaxiib qaali bay ahayd. How do you show friendship? Su'aasha idinkan igu soo noqotay. Idinka see u muujisiin saaxiibtinimadeena? Comment-ka ka soo jawaaba. The talkative tortoise. Didiinka taltaliiniga ahaa. Long ago, waa hore, there lived a tortoise and two swans in a pond. Waxaa jiri jiray didiin iyo laba shimbir wabi yar ay ku noolaayeen. They were very good friends. Saaxiibo aad iskugu fiican bay ahaayeen. The tortoise was very talkative. Didiinka hadal muuba kala joojin jirinba. He used to talk to swans for a very long time. Waqti dheer buu hadal u qaban jiray labada shimbir. All of them were happy. Kulligoodna saas bay iskugu faraxsanaayeen. Once, marka mar baa dhacday, there was a drought and it lasted for a long time. Abaar baa dhacday. Waqti dheer bayna abaarta socotay. The water in the pond dried up. Biyihii wabiga way qalaleen. There was no water to drink. Biyo cabitaan baa bala waayeba. And it was now impossible to live there. Macquulna meeba ahaynba meeshaas in la sii degnaado. So, marka, the swans decided to fly away to some other place. Shimbirihii go'aan waxay gaareen inay buubaan meel kale u buubaan. The tortoise requested the swans. Didiinkii wuxuu ka codsaday shimbirihii to take him along too. Inay asagana ay wadaan ay qaataan. But laakiin
Since he couldn't fly, maadaama uu buubi karin, they sat down to think and found a way. Way tashadeen, way fadhiisteen, bal inay jid usoo baxdo, wayna usoo baxday. The swan suggested an idea. Shimbirihii waxay soo jeediyeen fikrad, according to which the tortoise, sifo uu didiinka, would have to hold a piece of the stick, inuu qori dhinac ka qabsado, by its mouth, afkiisa uu qoriga gashto uu ku qabsado, and the swans will hold the ends of that stick. Shimbiraha marka labada dhinac oo qoriga qabanayaan, didiinkana afka wuxuu gelin meesha oo dhexda qoriga. They warned the tortoise. Didiinka bay digniin siiyeen not to talk during the journey, intay ay guurayeen inuuba hadlinba. The tortoise promised. Didiinki ballan buu galay. And the three friends set out to fly. Saddexdii saaxiibna weeba isla buubeenba. On their way, ayagoo jidka ku jiro, they crossed several villages. Waxay moodeen ama arkeen tuulooyin fara badan. Many villagers saw the tortoise and made fun of the tortoise. Dadkii tuulada ku noolaa markay arkeen didiin oo buubayo, waxayba bilaaween inay ku qoslaan eeba ka shaactireystaanba didiinkii. This enraged the tortoise. Arrinkan aad bay aga xanaajisay didiinka, and he couldn't control himself. Controlkii baa kala muun isxakameyn waaye. He opened his mouth to speak. Afkiisu fure inuu hadlo. As soon as he did so, markuuba afka saas u kala furaba, he fell down and died. Wuu soo dhacay dhulkuuna wuu dhintay. The swans were shocked. Shimbirihii mufaajicay ku noqotay to see their friends die, inay arkaan saaxiibkood oo dhintay. The tortoise lost his life. Didiinkii saas buu noloshiisa ku waayay because of his foolishness. Macnaha doqonnimadiisa u keentay inuu dhinto. Moral, ulajeedada sheekada, we should listen to our friends' advice. Waa inaan dhageysano saaxiibaheen talooyinkooda. Marka casharka halahaas baan ku ekeeni. Anigana talo waxaan igala tegi lahaa inaa casharadan aad u baratiin, aad fiirsatiin, aad dhegeysatiin. Waxaanan iga baryayaa inaa subscribe-ka igu dadaashiin, like-ka igu dadaashiin, share-kana ii badiya. We have come to the end of our video. Thank you so much. If you're new here, please kindly do subscribe. And if you're from my YouTube channel, thank you so much. Please do share this channel to your friends and family. See you next time. Ma salama. Goodbye.